أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaa dhowr jeer lis weydiiyaa masalada ah saddex arrin. tan koowaad oo ah dadka isku qaldaan inay kala saara u baahan, taasoo ah sujuudi ilaahay subxana wa taala loo sujuudo. waxaan nidhi sujuudda waa jabhada ilaahay subxana wa taala dhulka in loo dhigaa. sujuuddaas marka saddex nuuc wey markii laga reebo tan fardiga ah. kuwa fardiga markii laga reebo waa sujuud sahwi loo sujuudo iyo sujuud tilaawa loo sujuudo oo akhriska markaad aayadda sajdada aad timaadid, iyo sujuudu shukri oo ilaahay subxana wa tacaala markay nicmay ku timaado oo tatajadada nicma inaad salaad sujuud shukri u tukto. waxaa ka bilaabayna tan asaaska ah oo sujuud sahwi. dabcan sujuud sahwiga waa mashruuc. sideedana sujuud sahwiga waxay timaadaa salaada waa loogu dabamaraya. sujuud sahwi dhex ku jirto ma jirto, gadaal ayaa la geenayaa. waxayna ku timaadaa saddex xaalamid. inaad salaad wax ku ziyaadisid sujuud sahwi ay u baahan tahay. salaad inaad wax ka naaqusisid sujuud sahwi u baahan tahay. ama aad ka shakisid naaqus maa ku dartay ama ziyaada ku dartay aad ka shakisid idin sujuud sahwi u baahan tahay. marka saddexdaas xaaladood ayaa ah. walidaalika masalada ijmaac wey, nusuusna waa leedahay. nabiga calayhi salatu salam ficilkiisa ka soo aroortay iyo qowlkiisaba ka soo aroortay in sujuud sahwi u bannaan yahay. saddexdaas asbaab uu yahay marka, laakiin dadka waxaa ka maqan oo la rabaa in isxasuusin nafteeda xasuusinaya waxay tahay marna sujuud sahwi culamadu waxay waa waajib, marna waa sunno. labadaas ayuu u dhexeeyaa. mar waa waajibo haddaad ka tagtid arkaanta salaada, haddaad ka tagtid rukuuca ka tagtay, faatixada akrisay, waa rukuuc meesha ka rukuucla sujuuda aad. rukuucaas waxaa qasab inaad soo celisid. dabcan ma soo noqonaysid sujuudda ma ka soo noqonaysid, waa sujuudaysaa rabbi qfirida akrinaysaa, hal ragca zaa'ida kusoo diraysaa calaa rukuucaasa ka tagtay, hal ragca zaa'ida kusoo diraysaa. xaaladaas oo kale marka oo ragca zaa'ida kusoo darto oo sababta ugu dartan ay tahay rukniga ka tagtay ama faatixa ka tagtay ama sujuuda ka tagtay ama waxaa ka tagtay rukuuc arkaanta salaada waxyaabaha rukniga ah, ragca loogu daraa iga looma soo noqdo. rukni looma jibinayo, laakiin ragca zaa'ida ugu daraysaa. haddii maqrib ahayd afar ragca ka dhigaysaa si aad rukuucaas aad ka tagta u keentid. saas daraaddeed ayaa waxaa laleeyahay marka markaasoo kale markaa ragcada kusoo dirtay kadib intaa salaamo naqsanin. maxaa yeelay labada way bannaan tahay. salaamo naqsiga inaad salaamo naqsatid oo assalaamu calayka aad tira kabacdi aad sujuud sahwi aadid way bannaan tahay, nabiga waa ka soo aroortay. iyo inaad horta sujuud sahwi aadisay soomaalida ay sameeyaan kabacdi aad salaamo naqsatidna way bannaan tahay, nabiga calayhi salatu salam ka soo aroortay. balse waxaa qoolka raajix ay tahay oo aakhir axdii oo nebiga uu sameeyey inuu uu sujuuday qabla salaam oo marka hore sujuud sahwi sameeyey kadibna uu sameeyey, lakin labada waa ka soo aroortay nabiga calayhi salatu wasalaam. idan xaaladaas oo kale waxaan loo soo dirisadaa qowlka xadiiska ibn mascuud sallaa bina rasuulu llahi sal alla alayh wasalam, nabiga ayaa na tujiyey. wuxuu leeyay kamsan falama intafala markuu u dhameeyey min asalaati ayaa dadkii isla hadlay. nabiga alayh salatu salam shan ragcuu dadku tujiyey. salaad afar la rabay ayuu shan ragca tujiyey, ziyaado ku daray nabiga alayh salatu salam. saas daraaddeed nabiga alayh salatu salam markuu salaada dhameeyey loo sheego markaasuu inamaa ana basharun wa ahay mislukum ansa kama tansuuna, waa ilaabi karaa sa wax u ilaabaysaan. wajaba markaasu wuxuu ku yihi nabiga alayh salam fa idaa nasiya axadukum faliyasjud sajdatayni, hadduu midkiin ilaabo hadda ziyaada u keen nabig alayh salatu salam markaas laba sujuud ku dara wax kale kusoo daraya, lakin hadday naaqus tahay ragca lagu soo dari lahaa. sidoo kale waa markuu salaada dhameeyey kafir ayuu soo celiyey, ama markaa salaada ku jirtaaba shakisay, idina markaas oo kale sujuud sahwiga ayaa la imaanaysaa. laakiin waxay ku xirantaha goortay waajib noqonaysa markaad ka tagtid arkaan, markaa ka tagtid waajibaad, markaa ka tagtid sida ataxiyaadka dhaxamala ka tagtay waa lala xiriiriyaa. waxaa ka tagtay subxaan rabbi alcadiim ma dhihin markaad ataxiyaadka meesha ka akri lahayd ayaa waxaa ka akrisa faatixa akrisa adoo ataxiyaadka fadhida faatixa akriya. sujuud sahwi u baahan tahay. maxaa dhacay? waajibaa ka tagtay xaaladaas oo kale. waajibkaas oo kale aa ka tagtay sujuud sahwi asagana waajib uu yahay. xaalkaas oo kale uu adag yahay, sujuud sahwi la-aan lama rabo. markaa sunanka idan markaas oo kale waajib uu noqday. xadiisna waa kusoo aroor nabiga alayhi salatu wasalaam inuu saa sameeyey. laakiin markii aad sunno u yahay waxa weeye markii aad qiraa'aadkaas oo kale aad samaysid, marka aad ka tagtid maalan culamadu waxay yidhaahaan sunanka waxaa kamid ah subxaan rabbi alcadiim inaad tiraahid sunan waay. inaad tiraahid samic allah liman xamd sunankay kamid tahay. inaad tiraahid subxaan rabbi alcalaa inaad tiraahid waxaas oo kale sunan waay.
سنن كاسو كلام مركا كتكتid waxa leeyahay asagana sunnu naqa imaatigiisa sunnu naqana مثلا ayaa ku kabaysa ama الموضوع عيسى وحوي وان شيخنا اما قبل السلام اما بعد السلام ونسمي كرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك